السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلامي دمانتين ومان عقال أنتو حرم إنها كهالله سيدا تكون نقول لهايد أردي قوليستا قرنتان هو قد الموضوع عنا فضلا هدي أقول صوتها يوتيوب سبسكرايب له كمبير كم فلو إن شاء الله تعالى وحن كوبا لنقاضيا إن هذا كون قوب دونين أما هذا كو خسار دونين وحن رشا هذا وحقدره إن شاء الله تعالى هل كان ترسل عندنتي أنت كوجد تشرو ترسين تعطيدا أما سوى حبريستا وحن لك كل ما سؤاله آدي سوتشي ذا شغله وأرد قاركود ويديان وحكم ذا سؤاشن سيدا كنا قنكرا أرد جوليستا مع عقاله سيدو كلا وحكم ذا سؤاشن وحن دونا يا إن نقض أرد جول كجار وحبرشيس وحن سمية هذا waxaan rabaa haduu ilaahay ma dhowr qodob oo kooban inaan halkan kugu soo gudbiyo oo ka saacidaya sida aad ku noqon lahayd arday wanaagsan. Qodobka koobaad wuxuu noqonayaa noqo arday ujeedada leh. Dhammaan ardayda meel kasta oo caalamka ay ka joogaan cid kasta oo arday oo wax barata xilliga ay wax baranayso ama subax ha ahaato ama galab ha ahaato ay xaafadooda ka soo tagaan waxayna yimaadaan goobta waxbarashada. Hal fasal ayaa waxa yimaada arday fara badan ama hal iskuul ayaa waxa yimaada arday aad iyo aad u badan laakiin waxa kala duwan ujeedada ay halkaas u imaanayaan qaarkood waa la soo kiciyaa oo waalidka ayay kaga dhuumanayaan iskuulka qaarna iyaga ayaa doonaya in ay hadaf iyo ujeedo ay leeyihiin xaqiijiyaan haddaba ardaygii doonaya inuu guul ka gaaro waxbarashada waa inuu yahay arday ujeedo leh ujeedo cad haddana qoran waa maxay waxa aad wax walba inta buugta u soo qaadid adiga oo quraacan iskuulka u soo fariisanaysid haddii aad bara Soomaaliyeed tahay waxaad arkaysaa in ardaydu iskuulka markay fasalka soo galaan qaabka ay macalinka u dhageysanayaan ama ay u xiiseynayaan maadooyinka in ay kala duwan tahay waxaad halkaas ka dareemi kartaa sida ay u kala duwan tahay ujeedada ay ka leeyihiin waxbarashada marka si kasto ay ahaataba waa in aad qortaa ujeedada aad wax u baranaysid haddii aad ujeedo la'aan wax u baranaysid maxaad iga weydiinaysaa sidii aad waxbarashada ugu guuleysan lahayd qodobka labaad marka aan ku soo gudbiyo waxa weeye arday kasta oo raba inuu guul ka gaaro waxbarashada waa inuu yaqaanaa sida loo maareeyo waqtiga waxaan kugula talinayaa inaad noqotid mid ka faa'iideysto waqtigiisa yaqaana habka loo maareeyo waqtiga maalin dhowta ayaan arday u sharaxayay haddii qof maadooyinku ay ku adag yihiin uu isku dayo inuu didaal badan sameeyo waqti badan geliyo wax akhriskooda oo maadooyinkaas ku adag ama waxyaabahaas dhibayo uu waqti badan geliyo waqtigaasi wuxuu noqon doonaa mustaqbalka mid la kaydsado noqon doona ama wuxuu ku noqon doonaa waqti adiga ku soo koobnaado tusaale ahaan maadooyinka ayaa igu adag maadooyin badan ayaa igu adag marka waa inaan geliyaa waqti badan tusaale ahaan 5 saacadood ayaan galabkii wax akhriyaa 5 saacadood maalin bil kasta taagnaan mayso tusaale ahaan 3 bil oo horeysa haddii maadooyinka aadka ii dhibahaya aan maalin walba 5 saac galiyay waa hubaal bisha afaraad markay dhalato in waqtigayga wax iska bedelayaan 5 saacadood meeshii aan ka galin jiray inay 2 saac iyo bar ugu badnaan 3 saac ku soo aruurayso waa laga maarmaan maxaa dhacay wixii la soo fahmaysaa marka soo fahantidna waqtigaagii ayaa ku soo yaraan doona marka waxaad faa'iidi doontaa hadhow inaad waqtigaaga aad wax kale uga faa'iideysid marka arday kasta oo rab in waxbarashada guul ka gaaro waa muhiim inuu yaqaano sida waqtiga loo maareeyo oo waqtigiisa looga faa'iideysto qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa dulqaad ardayba ardu inta ka dulqaad badan yahay ayuu haduu ilaahay ka guuleysan ogyahay dulqaadku waxa waaye waxaan maqalnaa maalin kasta arday dhahay ani maadi hebel kuma fiicni ani maadi hebel way dhibtaa waa jirtaa ardayga hiba ahaan maadooyin uu iska jecel yahay laakiin waxa loo baahan yahay inaad dul qaadatid inaad saacadaha badan iskuulka ama jaamacadda aad fadhidin u dul qaadatid
inaad u dulqaadatid maadooyinka kugu adag waqtiga aad gelinaysa inaad u dulqaadatid inaad u dulqaadatid shaqooyinka xaafadda kaasoo wajahaya ama bulshada iyo ama saaxiibada dhalinyarada iyo sidii aad waxbarashada iskugu keeni lahayd waa inaad dulqaad leedahay haddii aadan dulqaad lahayn way yaraanaysaa inaad horumar ama horusocda sii samaysid inaad muuqaaladeena si bilaasha ku daawatid waa mid aan ugu talagalnay oo waqti badan gelinay laakiin inaad hal subscribe nagu caawiso waa mid qaadanaysa wax ka yar hal second